السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايدين سلام يا أصحابتي إذا شرفت بدن ومركلة إيه مقال عصب إيه مالين كلو الله الرحمن كأنه وسمي دمانتين خير يا بركة يا نور عند دمانين بإذن الله الرحمن وحن ليه يقول يو قبل مقر يا أيام با runtii waxaan rabaa inaan ka hadlo dagaaladii maalintii dhaweyd ka dhacay gobolka Jubbada Hoose maamul goboleedka Jubbaland waxaan leeyahay runtii waa kugu dhimay oo ka dhimay wiil Soomaaliyeed ku soo duulay xero Soomaaliyeed ku soo duulay iyo xarun Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliyeedna uu soo adeegsaday waxaan leeyahay أحمد محمد إسلام ونجاسية كنا تلقى إنه دلكيسي دتكيسي بالدفاع ده قف كمركو جاسي هنا ده لهي محر جاسيبو هدف كيسو له الرماية ولا بيع وحلو قصو دولة وماشوا أسيا كتلني يبت كيسي بريهيسي حق بنا ولا هاي إنه الدفاع ده دتكيسي إنه الدفاع ده حق ولا مدحوينها كلمة كده جستي وحيري Jubbaland hadda ganaadan dad haloo kala badto laakiin waa dawladda Soomaaliya inta ay ka kooban tahay ayaa Jubbaland degan buu yiri haloo kala badnaada be oo waliba de marka ayada ah jir ahaan qalbi ahaan maskax ahaan iyo hadal ahaan sidoo u hadlaya ay tahay si aad u adag oo yacnaha ku jirto nacayb gudaha waxaan leeyahay ragga Jubbaland la soo kala adeegsanayo hadad beesha mareexaan tahay iyo hadad beesha ogaadeen tahay iyo hadad beesha hartiye tahay inta meesha degan iskugu timi ee beelaha Daarood Ismaaciil oo dhanba ka kooban la kala jiidanayo sidii dhurwaa ari galay hadba dhinac loo kala yaacinayo waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya idinku wax idin haysa haba yaraatay ma jirto dawlad yar baad leedihiin dawladdiina yar barakaysta taasa idin la aqli ah taasa idin la cimri ah taas ayaa wax tar idin kaga baahan waxaan la hadlayaa gabdhaha ka soo jeeda gobolada haday noqoto Jubbada Hoose haday noqoto Jubbada Dhexe iyo haday noqoto gobolka Gado waa dhulka ugu ballaaran Soomaaliya beelweyntii sida Daarood Ismaaciil way ku noosha beelweyntii sida Daaroodna waa ku noolyihiin Allah Raxmaanka meesha idin ku nooleysiyay laakiin Ilaahay baa idin ku dhaariyay gada inta dhibaato ay ka dhacday iyo inta dhib ka dhacay iyo inta fatahaad ka dhacday iyo inta abaarihii aad arkaysay dhacaysay wali ma aragteen dawlad Soomaaliyeed oo soo gurmato in isagu mareexaan intuu isu istaagay oo isagu dhulkiisa hagaagsaday mooyee ma dawlad waxaad aragtay dawladnimo kuugu soo gurmato kuugu timi ma aragtay wali ma haysaa mana tusi kartaan dawlad xitaa tii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hayay Allah ka dhigay gobolkaas wali cid dawlad ahaan ugu soo gurmatay haday jirto ilma adeerayaal oo noo sheega oo na tusa idinkoo maanta maamul gooni ah goosta la qaatay idinkoo maanta gooni u istaaga la qaato dhahdin anagu Gadaland baan la dhahay maxaa dawladda Soomaaliya ku haysataan waxaad ku haysataan ba male maxay dadkiina la isu soo adeegsanaya mareexaan dhaxdiisii baa la isu soo adeegsanaya ogaadeen dhaxdiisii baa la isu soo adeegsanaya hartiga dhaxdoodii baa la isu adeegsanaya iyaga baa la isku diraya mareexaan hawiye waxa leeyahay dardo ku nacib yahay ogaadeenna waxa leeyahay mareexaan baa ku nacib dawladda ka dhaqaaqilada hartigi waxa leeyahay ma jeerteen baa ku nacib dhulbahantow ma dhaqaaqaysa dawladda qaatuma sababta ma jeerteen baa ku dhagan war ma jeerteen haduu kugu dhagan yahay kulama u dagaalgelin lahayn cadowgaad iska kicinaysa dhinaca kala muu kicin lahayn war mareexaan iyo ogaadeenoo haddaad idinku cadow isku tihiin wax isku miidna darsan lahayn maskaxdiinii caqligiina xaggee jirtaa
hadda dad cadow isku tihiin waxba isku midna darsan lahayn soo moogid nin walba goonidiisu wax u qabsan lahaa taada kale intaad cadow isu kadi lahaydeen oo idinku dhexdiina cadow isu soo adeegsan lahaydeen ma weysay calan aad adigu gooni u taagato oo degmadaada iyo gobolkaaga iyo dhulkaaga aad ku magacaabato macarada lagama waayin waxaan si fiican ula hadlayaa oon si adag ula hadlayaa oon mar kalena ku soo celinayaa saddexda gobol ee isku darsamay ee dhiigga iyo dhalashada iyo dhaxdintu ay ka wada dhaxayso iyo wada dhalashadu ay ka dhaxayso ee isku abtirsadaan ka hadlayaa ee raggooda madaxda ah loo soo adeegsanayo shalay markay biyaha ku qaadayeen iyo daadadku ku qaadayeen nin dowladda kuu soo gurmaday ma jirin maanta in lagu dhaho doorasho qof iyo cod baan ku gaarsiinayaa asaga muu isgaarsiiyo doorashada cod maxaan ku raadaaye qof iyo coda isaga muu isgaarsiiyo muxuu adiga kaala soo doona adigu ma timir xabaaltaa laata ragga siyaasiyiinta daaro ismaaciilna waxaan leeyahay siyaasi hanti kaa bartay ninay soori qaaday baa li ninay seefi qaaday keebaa daran ninkay soorta qaaday baa daran siyaasigu soorta ay qaaday ku toogta meeshiisa haba soo kaxaraynina hana keensanina hadduu intuu soo noqdo siyaasi soor kaa raacay hadduu dib kuugu soo noqdo bartiisaa ku toogta hanagu soo celinina sababta taa berru kaa dhaqaaqaya kaa tegaya ilaa hanti iyo xoolo u bartay nin intuu kaa baxay ciidan iyo adduunyo kugu soo hogaamiyey berri haddii la dhaho waa wiilkanagii uu noo soo noqday oo uu noo imaaday ma yeelaysaan ma soo xaraysanaysaan geesi kasta uu yahay bar alla bartu taagaya ha lagu togto dikal ahayna xabsi daa'iman ha lagu xukumo xabsi daa'iman ah ha lagu xukumo yaan la soo deen ragga meesha ku jiro ragga ka baxay ciidanka Jubbaland ee u galay meel kale ee cadow ku soo hogaamiyey ee yiri kaalaya Jubbaland annaga idin qabanayne idinkuna soo weerara yiri berri ka maalin hadda idinku soo noqdaan waxaad ka yeeli lahaydeen yaan idin sheegaya haddaanu haddii aniga la ii dhiibi lahaana bartaysan ku toogan lahaa ilaahay ugu ogyahay inaanan soo xaraysan lahayn ha isku soo xaraysanina ragga bannaanka idinkaga bixi cadowga raacay bartiisaa ku toogta ninka oon ahayna xabsi daa'iman geliya oo uusan weligii ka soo baxaynin because ninka markuu soorta kaa barto oo lacag iyo shilin barto berri ka maalina cadow ka weyn buu kuu soo raacayaa kan Soomaaliyeed mid ka weyn buu berrina kuu soo raacaya kuu keenaya machaachos baa la soo xaraystaa machaachos baa meesha la keensadaa maxaa idinka qaldan taada kale waxaan la yaabanahay waagii dagaaladu dhacayeen maxaan ku raadayay qaatumo iyo maxaan ku raadayay la xoreynayo la soo dadka laga saaraya cadowga naagaha daarad Ismaaciil oo dhan way gurmanayeen waana ordayeen naagaha Jubbaland baha ugu darraadaan way socdeen magac daarad Ismaaciil la dhahay ku doodayseen ku duuleyseen hadda xageed aadeen maxaa loo waayay naag raggooda ka garab hadasho maxaa loo waayay magaalada Toronon joogno naagaha sasa lacagta looga wada aruurinayo looga qaadaye ciidamada Jubbaland maxaa loogu uruurin waay wax maxaa loogu garab istaagi waay saayagu cadow kuma soo duulin saayagu wiilashooda lama laynin saayagu meel kasta lagama xirro maanta cuna qabateen ma saaro maxaa wax loo tari laaya maxaa loo garab istaagi laaya dagaalada kale iyo weerarada kale bood garab istaagtaan naagaha reer Jubbaland baa sheegaya dal iyo dibad meel kasta aad joogtaanba way naag hadasho looga laaya way naag rag u istaagto dhaxdu u xirata looga laaya way naag dadka hanti wad haysataane maxaasinimo idinka ta maxaasinimo idinka ta wax kale idinka tahay ma jirtee xageed geynaysaan xoolaha waad ka dhimanaysaan
dalka laydinkugu xoreynayaa nayaada idinka wax laydinkugu xoreynayaa wiilkaaga wiilkiisa beri loogu xoreynayaa kuwaad adiga dhashay ee meesha buuxo beri markay guursadaan Soomaal uma baahno naagta 4 wiil haystaan 4 wiil baan hayaa 4 wiil xagee degayaan xagee aadayaan xagee joogayaan xagee ku nasanayaan xagee rabaan inay fariistaan ilaa beri kamaana way guursanayaan xagee aadayaan soo dhulkooda ma inay aadaan ku noqdaan oo degaan oo beri carruurta halkan lagu wada dhalay meesha la geynayo waa xagee soo Kismaayo maaha soo Gada maaha soo maxaan ku raadayay Bu'aala maaha xageed geynaysaan marka saddexda gobol dadka ka soo jeedaan sheegayaan ee abaar haday dhacdana aan isgarab siinin aaran hadduu dhacana aan garab isa siinin ee maanta ciidamadooda xitaa aan naag garab istaagtay aysan ku jirin naag ka hadashana aysan ka jirin magaalooyinka kale iyo gobollada kale Daarood Ismaaciil markuu dagaalka ka dhacayna gurmadka iyaga kaaga horeeyo qayladhaanta waa warayda gurmadka dadka iyaga uga horeeyo kuwiina ka bilaaba gurmadka awood buuxdaana magaalada istaaga ee naag walbana ha ogaato in ay ka dambayso ciidamadiinuna ha ogaadaan in uu ka dambeeyaan oo ay leeyihiin gabdho garab taagan iyo wiilal garab taagan inay leeyihiin naag walbana gadaasheeda ha xisaabiso in ay gadaasheeda jiraan wiilal geesiyaal ah oo dalka u difaacayo dib waa ina u fiirisaa dib adiga waa ina u jilacdaa oo dib u fiirisaa siyaasiga xunna ha nagu soo celinina ninka ciidan intuu ahaa kaa baxay oo kaa tagayna ha isku soo celinin ilaahay hadda taqaaneed bartiisa ku toogta waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum guushu waa Axmed Maxamed Islaam xagiisa mar walbaba geesuguma leexo geesuguma dhaco geesuguma tago muxuu ugu soo noqnoqonayaa geesinimo ugu soo noqnoqonayaa muxuu u joogaa geesinimo ku joogaa fulay hadduu yahay waa hore laga ceyrsan lahaa ma kula tahay inuu joogi lahaa ma joogi lahayn waa hore la ceyrsan lahaa sababta loo ceyrsan waayo maxay tahay geesinimada ku jirta lagu ceyrsan waayey geesinimadiisa loo ceyrsan waayey geesinimadiisa wax looga qaadi waayey nin marka isagu nin lagdaday oo dhulka dhigtay ba waxa la rabaa tolkii dhaxdii inta loo adeegsado in la yiraahdo noo lagad wixiinu waa noo lagad marka rag la soo adeegsanayo ragu ka adkaaday baad rabtaan aad u qabataan salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh